ورسلق النبي عليه الصلاة والسلام قفك الله وافجيه وإلهي سي الله أكبر تقضى حاجته حديث النبي قيمة صحيحة وحول إنك صحابقها يا رسول الله وحن بديها سلق هذه لكن أوراد كلي أذكار كرنا والله هاي إمسان كدقها ما لما ميلود ميل بان كدقها سلقها هذا دوني سها إن أتكبد سنة واكاغا في عندها هذا بس سدح ميلود لما ميل سلقها أن كدقه أنت كلنا وحول هذا دونت هذا كبد ساكاغا في سلقها يقولون يدعى يقولون سلقها يقول مكدقها وحول يقول كجواب مركا إذن هذا سايكشو يكفى همك ويغفر ذنبك همك يمرغودا كويسه ادونك او دون ولا كافن اخرنا ذنب دافن ولا شيء لبدنا waa labada mushkil ee insaanka haysta aduunkana hammi ba haysta akhirana dambi ba haysta labada hadii laga cafiyo ka war maxaanad ku heshay waxaad ku heshay salliga nabiga badis kulka ninkay arrimo isu qaban laadahay ee wax ka kala haleysan yihiin mu arrimaha cuskado arrimaha nabiga noo tilmaamo saadiq al-masduuq mu cuskado انتو ميلها قلب لينا يهبه يفير وحن يفير وذكر مخلوق مسكينه وحبا يسنن ودب ارداي لها اعماشا صالح هذا بوكسي حاجه هذا ادكو غدن يقين ادكو هليش يعني فائده الهي هو معي الهي بابتكو بربا سبحانه جل جلاله كذب الهي بقلبي اكو وينانا يو واحد اوغانيسا كون كني ان مركي ربيغان وابوري ونا كتنازلني ولي وسق حكومه يسق حكومه الا دد بان سام اوغي dad badan waxa kula helay dhulka cirka uu abuuray uu sameeyay laakiin dadku siiyay war dad ma siinina isaga iskala wali imisu ilaahi ku celcelinaya walillahi mulku samawati wal ard lahu ma fi samawati wal ard la yaqa'u fi al-kawn illa ma arad wuxuu ilaahi doonay ahata ilmuhu bi kulli shay dhammaantiis wa rabbiga cilmigiisu koobay way imisu geeda wadankan ku taal Sweden soo ma yahay meesha وأشكر مرفي لنا جوا برتان ترى سويدا سما إمي سجيت بقى سويدا كتان سوما ينبر نقولهن ولمبر ما بيكو قريهن كمبيوتريسين قاربا سي تهويلي أرتوح كليهن جيد مجرو ودن كان إلا وع واللمبريسين ولا يغنى يا لمبر بوليه دين أنا أردت أن يجرت أمر الماء لكن كبا سوقات إن يجرت كبا سوقات إن جيت كستهم كبحة يكون جزر ككبحة جزيرة ده يبضها يدازولا إلى هو أول ترسين إسكدف جيده على ما هذا أو ترسن إسكدف على ما هذا أو نوله مركي أنت على أنتو أي جوضة أمر لماتو لوك قصور بعضه مسوا قاريش إلا بعلم الله كور وما تسقط من ورقة إلا يعلمه إله علمي يسوع سدا واسع وياها ما أدري أرنت هذا يعني أنكو قبني ما حتى هذا إيش عندك أنت كم إيش مشاكلك ومحيين حاط علما بكل شيء إله سبحانه وتعالى يعني كم كانوا كان قوي سجوا ما لا يقفلين كم إذا كداون ما لا يقوين يحوط كبدك وجري هل مر عن توجدي سود طبعا كل أو حبة أو وحواي أو ملاي كلا يريرة سجوا نبري وين هل مر مركو عن توجا قاتو أنا ومترين كل وان أركي الفيلم كوان كأركي واحد بدن إنه لقي أكيد واحد إلى طبعا كل أو حبة لو قياسها أنتوا هل مر لقوا وهل عن توجا وين تيلا بعدي تيسة حادي قلدي عشري وأنا من تقولي فمن رازقه الله marka kaas waxa malaga meesha aan loobin siiyay ee u sakhir rizqigiisa adiga ma ku dahaya aba maxaa cunay hal xabo malaga wada dhameen laadahay 10 kun oo xabo weey markii kaliya fi kulli marra aflaamta noocaas daawada lil ibra wal i'tibar iyada ka khayr badan waxaan kale oo galab leento gaalada beenta ay sheegayaan inta ka dhacay inta bastoolo ku dhufi inta ka boodi meeshaan waxaan suurtoobi karin ba wax sawiran kaaga dhigayaan kuwaas ka fiican oo lil ibra oo ayadaha ilaahay aad ku qaadanayso qalbigaagana ay ka buuxsamayso kam wus'u khalqillah wa min ilmi allah wahaba kamidaba
kuwa aan isaga rumaysnayn oon ilaahayba ku mahadnaqaynin oon aayadahaasi waxba u taraynin inuu ku adeejiyey ay kusoo duubayaan oyna mar qura subxaan allah odhanayn iyo bal ka war laa ilaaha ila allah. waxaan xusuustaa marka alaaya la fi suurat yunus calayhi الsalaam qul induruu maada fi الsamaawaati wاlard wma tugni اlآaayaat wاnnuduru can qowmi laa yu'minuun. ilan qofkaan iimaan lahayn aayado waxba u tariba maayaan wax kastoo la tuso wax kastoo la marka acmaaq albixaar alaaf mitraat intay tagaan oo acmaaqda ay galaan oy wax soo sawiraan oo ay arkaan sida ilaahay makhluuqaadkiisa u arsuqayo oo wax u siinayo oo u kala quudinayo oo u kala wado ayna mar qura subxaana allahi odhanay laa ilaaha ila allah. laakiin adigu waa inaad subxaana allah tiraa, waa inaad cilmiga ilaahay waasicnimadiisa aada ogaataa iyo qudradiisa jala jalaaluhu iyo koonkaasuu u kala wado u kala tadbiirinayo oona cidna cid kale ku halaynayni. quraanjada adduunka ugu yar maanta xaalkeeda ilahay waa la socdaa, waxay u baahan tahay wayba ogyahay. hadday jiran tahay waa caafinaya, ya hadday gaajaysan tahay cusnaad isagaa siinaya, hadday guur rabto waa u guurinaya, hadday ilmo rabto waa siinaya. ku mashquuli maayo adigan weyn ku mashquuli maayo iyada ka mashquuli maayo. laa yushgilhu shayء can shayin huwa rab اlcaalamiin huwa malik اlmuluk. marka nabiga sheekadiisaanu haynay calayhi الsalaatu wasalaam. rasuulu اllah salى اllahu alayh wasalam rabbigiis buu jeclaa, rabbigii buu ammaani jiray. axabahu axbaba اlkhalqa ilayhi, ilaahay buu jeclaa, dadkana khalqigiisa waa jeclaysiin jiray. ma jirto waaqaco dhacaysa oo dadka hortoosa si caadiga u maraysa ilaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu isku xidhi jiray taa iyo qudrada ilaahay, xubiga ilaahay, raxmat اllah caza wajala ayuu ku xidhaya fi ay waaqac. maalan waxaa dagaal baa laga yimid, dagaalkii marka dadkii gaaladii waa lagu jabiyey, kolka haweenkii waa lasoo qafaalay, lasoo qabqabtay. marka mucaskarkii baa la yimid, meeshii baa la degan yahay oo nabigi jeyshkiisi alayh الsalaatu wasalaam qof naag gaaladii ka mid a, dadkii lasoo qafaalay ka mid a ayaa ilmaheedii ka lumay. ilmihii bay marka deedayeysaa, waa beerkii waa raadinaysa ilaa ay aragtay. ilmihii markii ay aragtay bay intay booday dadka dhexdiisa ay laabta saaratay bay nuujisay iyadoon u abayeelin wax fiirinaya iyo wax kale. waa mowqif qof kaste dhaqaajinaya qalbigiisa, naxariista meeshaa ka dhacday soo maha. si caadiya nebigu iskagama dhaafin marka inay arrintaasi iska gudubto. bal fiiri suu ugu xidhayo addoommada rabbigooda ugu xidhayo. waxaan idin weydiinayaa buu yidhi, ma u malaynaysaan qofkaas ilmahaas dhashay hadda iyadoo awoodda caqligeeduna kaamil yahay, awooddeeduna buuxdo, inay ilmahaas kas iyo ula kac dab naara ugu tuurayso? ma u malaynaysaan? mayay dhaheen, lagama yaabo yaa rasuul allah, naxariista aan arkayna lagama yaabo inay dab ku tuurto soo ma. nabigu alayh salatu slam muxuu uga jeedaa? markaasuu wuxuu yihi lallahu ilaahay arxamu bicibaadihi min hadihi biwaladiha. allah baa addoommadiisa uga naxariis badan tani sida ilmaheeda ugu naxariis. marka rabbigaas raxiimkaad leedahay, rabbigaa raxiimka uu nebigu ku baray calayhi الsalaatu wasalaam, sidaad u baran lahayd, ood u jeclaan lahayd, oo xaajadaada uga gudan lahayd, oo calaaqa aad ula yeelan lahayd. arrintu ma aha inaan anagu nidhaa ilaahay baan naqaanaa, ilaahay baan jecelnahay. arrintu waxaa weeye inaad tidaahid aniga ilaahay bin jecel yahay horta mise maya. hal yuxibunii rabbi? anta tuxibuk, waa jeceshahay, lakin hal yuxibuk? inuu ku jecel yahay ilaahay sifaat baa la rabaa. sifaatkii uu kugu jeclaan lahaa ilaahay ma la timid? maya. haddaadan la imanin ku dadaal inaad la timaado.